يا صومالي مياه سمدهي صومالي مياه رحت صوعني صومالي مياه ده سغدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دو channel كيغا Maya Beauty هدا كعصبت هاي إن شاء الله ونوجي هاي إني سبسكرايبر بدن سبسكرايب قريين آد بهورتا waxaan doonaa iraado aad ba u wala maasantihiin subscribe-ka waan arkaya like-giina comment-giina waan akhriyaa waan arkaana marka aad ba u wala maasantihiin and insha Allah hadaa subscribe ahayn subscribe garan channel-kayga Maya Beauty uu grow garanaya marka insha Allah channel kalena waan haystaa oo Maya Talks la yiraahdo channelka laakiin waxaan u furtay inaan af Soomaali ku hadlo aan dadkayga baro and makeup look ahaato skincare waxaan bartay inaan dadkana baro ayaan doonayaa insha Allah aan u faa'iideeyo dadkayga Soomaalida so vlogs waan sameyn doonaa challenge waan sameyn doonaa insha Allah laakiin imika ahaan waxaan doonayaa inaan ku focus gareeyo arrimaha makeup-ka skincare-ka iyo vlogs ayaan doonayaa inaan ku focus gareeyo channelkan insha Allah marka subscribe like garaya iyo makeup look-kan aan maanta ni sameeyay waa color qurxoon baan ku yiri on ka helay anigu san u sameeyay masha Allah waa blue waa pink waa color la isku daray oo color ka noqday marka waxaan isticmaalay laba color oo color noqda marka video-ga aad dhameysatid ba ogaan doontaa labada color aan isticmaalay oo de color kan noqday insha Allah daawasho wacan I hope ina ka benefit gareysiin oo ka baratiin سان أوسميي and makeup look-gan إن شاء الله سؤال أم سؤالها ده هيسين حاجة سناب شات كإجراء صحريرة فيسبوك and إنستغرام كإجراء صحريرة إن شاء الله ونيسو شوي بدونا إيو comments كحاجة هوستا كسوقرة بروجرينا social media كا إنستغرام كا سناب شات كا فيسبوك وحاسدون كل شيء مركا إجا ولا بروجرينا إن شاء الله and داوشة وعن waxaan ku bilaabayaa waxa weeyaan moisturizer-kii aan isticmaalnay video-gii hore aan ka hadlay and runta hadaan ii sheego baasha mobile yar cajiiba and weekii hore ayaan isticmaalay for the first time and waxaan ku yiri makeup-kaygii wuxuu soo baxay flawless like qurux baan ku yiri and waxaa lagu talagalay makeup-ka hoostiisa inaa sida loo mariyo udgoon primer-ka ayaan marsanayaa primer-kan waa primer yar oo cajiiba primer-kan wuxuu isiyaa hydration badan waxa weeyaan gel ina arkisiin gel format weeyaan and gelkuna aad buu u fiican yahay especially qofku hadduu haysto dry skin aniga oo kale wejigaygu waa normal to dry skin marka taas baan uga helaa anigu primer-kan primero badan oo kale ayaa jirta aan isticmaalo primer mattifying laakiin waxay ku xiran tahay makeup-ka maalinta aan marsanayo what kind of look aan doonayo so what kind of makeup look aan doonayo maalinta inaan wejigayga dewy ka dhigo se waxaan doonayaa matte inaan ka dhigo marka waxay ku xiran tahay foundation-ka aan isticmaalayo and maanta foundation kan isticmaalna waxa weeyaan NARS Cosmetics Natural Radiant Longwear Foundation foundationka waxa weeyaan foundation aan aad u jecel yahay and waa foundation aan intii aan makeup-ka marsanayay over the years aan ka helo oo markasta aan ku noqdo and imika mid kale oo cusub baa soo baxay oo lagu talagalay wejiga oily skin laakiin anigu waxaan doonaa inaan try gareeyo insha Allah weeka soo socda ayaan tusi doonaa foundation-kaas iyo wejiga siduu ka dhigo laakiin imika ahaan waxaan isticmaalaya waxa weeyaan foundation-kan mid kale oo isaga uuna same brand waan isticmaalaa anu horta NARS Cosmetic baan in badan isticmaalayay aad buu u fiican yahay foundation kale way jirtaa aan ka helo insha Allah maalin kale aan tusi doonaa foundation-da aan ka helo as well ma arkisiin siduu wejigayga foundation-kan u match gareeyay next isticmaali doonaa highlighter marka concealer san u highlight gareeyo indhaha hoostiisa marka concealer-ka aan isticmaalno waxa weeyaan Boldness Way concealer absolutely love it anigu product-kan aad baan uga helaa marka xagga maan ka bilaabayaa indhaha hoostiisa ayaan marinayaa in yar ma doonaya inaan ilaa hoosta geeyo so waa kaas marka waxaan sameyn doonaa I'm gonna blend waan blend garanayaa concealer-kan
brushes ka aan wala isticmaalayna waxa weeyaan Morphe brushes marka brushkan waxa weeyaan M173 brush and foundation brush ka aan isticmaalayna waxa weeyaan Morphe M439 brush marka waxaan sameyn doonaa concealer ka ayaan blend garanaynaa marka insha Allah bal intan waxaan sameyn doonaa way ka buuxaan videoyaal aan sameeyay contourka iyo technique maybe waxaad doonaysaa inaad aragtiin technique aan saan u sameeyo foundation kayga iyo concealer kayga iyo contourka saan u sameeyo laakiin maanta waxaan doonayaa inaan focus ka siiyo indhaha eyeshadow look marka insha Allah waxaan sameyn doonaa base-ka waxaan powderkii wax kaste ma haldi doono waayo waxaan doonayaa hore inaan iskaga dameeyo wejiga saan indhaha focuska aan u siino aan ituso sida eyeshadowgan maanta saa arkaysiinba aan u sameeyey marka intan waxaan sameyn doonaa waan iska wadan doonaa laakiin way arki doonteen insha Allah isha baan soo sameyn doonaa insha Allah amba ishan mid maan dooran doonaa and then waan igu soo noqon doonaa insha Allah markaan dameeyo ishan amba il markaan soo dameeyo insha Allah waxaan tusi doonaa marka isha kale saayinukuna marka u baratiin insha Allah maanta look waa look fantastica sa aragtaan ba xagga hore videoga introduction ka aan sameeyay waa aragtaan makeup look aan sameeyay maanta marka insha Allah waxaan sameyn doonaa il baan soo sameyn doonaa and then waan igu soo noqon doonaa waan dameeyay marka ishan maanta waxaan isticmaalay waxa weeyaan colorka blue iyo pinky ayaan isticmaalay I absolutely love it waan ka helay saan u sameeyay runtii haddaan ii sheego eyelasheska waa a bit dramatic dramatic waxaan ka wadaa aad bay u waaweyn yihiin laakiin eyeshadowga si fiican ma loo arkayo baadadka ayaa qariyay laakiin markuu qofku very close qofka isku arkaysiin amba haddaan zoom in lagu sameeyo waa arkaysiin isha si fiican baa u arkaysiin colorkaan isticmaalay imikana dee of course waxaan sameynayaa waan tusayaa saan u sameeyey ishan ayaan tusi doonaa saan u sameeyey ishan baan igu tusi doonaa palette-ka aan isticmaalno waxa weeyaan the Carnival palette kalara aad u cajiiba oo quruxa ayaa ka buuxa oo very pigmented ah waayo marka eyeshadow iibsanaysid waa inaad ka fikirtid pigmentska waxaan ka wadaa colorka marka sidaa brushka u mariyaba inuu ku dego eyeskayga amba indhahayga ayaa very important you know sometimes you know hadduu noqoto paletku qaali waxaad sugtiin inaad save up gareyn kartiin lacagta u save gareysta oo waxaa ku fiican inaad mar iska iibsatid palet aad u fiican oo qualitygiisu fiican oo kalaro badan ka buuxaan marka saas like save money waxaan ka wadaa how do I say in Somali lacagta ururso
qofka inuu lacagtiisa iska urursado mar uu iska iibsado product fiican oo ku haynaya even haddii noqoto xabad producta I know ingiriiska waxaa lagu hayaa gooni baa lagu iibiyaa marka xabad baa iska iibsan kartaa slowly by slowly you know makeupkaaga meesha makeupka aad digatid ama studiogaaga ayaad iska digan kartaa marka insha allah waxaan ku bilaabayaa bismillah horta I hope inaan si fiican u sameeyo it was quite easy runta hadaan ii sheego very easy buu ahaa hore waan u sameeyey waan boobsiyey actually indhaha koonaha ayaan doonaya inaan mariyo cadaan yar marka ishan baan ku sameyn doonaa marka horeysa kalarka horeysa aan isticmaalayo waxa weeyaan kalarkan la yiraahdo mood I hope in arkaysiin mood baan ku bilaabayaa mood waxa weeyaan blue basically waxa weeyaan blue aad u dark ah marka waxaan isticmaalayaa waa brusheska aan ishan ku isticmaalay brusheska aan isticmaalaya kan horta waxa weeyaan Morphe M506 brush waa brush yar oo aad u cajiiba oo yar saa u arkaysiinba koonaha ayuu galayaa meeshaan doonayo ayuu galayaa basically waxaan iga iloobay concealer baan marinaya horta concealerka aan isticmaali waxa weeyaan concealerkan waxaan kasoo iibsaday Revolution makeup waa conceal and define full coverage wuxuu ku siinayaa full ah haddana iminka indhaha hoostiisa mariyo wax kasoo qarinayaa marka shade range waxa weeyaan C10 focused C10 okay focus ma sameynayo marka C10 baan indhaha oo dhan marinaynaa especially waxaan doonayaa xirabaha maan sameyn marka inaan suniyaha sidaa ugu shape garayaan doonayaa and then isha oo dhan ayaan marinayaa runtii waxaan sameeyaa brush baan isticmaalaa maanta markana waxaa igu dhacay brushkii waanba iska daayay marka waxaan isticmaalay waa Zoefa brush concealer buffer 142 ayaan markaa ku blend garanayaa concealerka si tartiiba oo ayara ayaan u blend garanayaa maku badanano waayo hadow tolo ayuu kalarkan baabi'i doonaa marka waxaan doonayaa inaan isticmaalo madowga xagan ku jira marka waxa weeye madowgan waxaa la dhahaa lights out same brush baan isticmaalayaa in yar ayaan doonayaa inaan dhexda mariyo saan u daakar kaga yara digo uu yara qurux noqdo kalarkii hore waarkisiinba siduu qurux badnaaday already marka it doesn't matter waxaa very important inaan kalarka uun ku ridno imika on in yarna ku yara darno blendingii okay waa kaas okay and next waxaan doonaa inaan isticmaalo kalarka wasted waa kan kalarkaasaan doonaya inaan isticmaalo and then waan dul marinayaa saan u blend gareeyo saddexdii kalar ayaan isku wala blend garanaya especially xagga dusha ayaan doonayaa inaan geliyo wuxuu ku fiican yahay eyeshadowgan wuxuu leeyahay muraayad aad u weyn oo kaa caawinaya eyeshadowga saa u marsan lahayd okay
waa kaas saddexdii color waa all together. Okay, waxaan doonayaa inaan blend gareeyo, marka brushkan ayaan soo qaadanayaa. Colorkii wasted aan imika marsaday ayaan dusha korka marinayaa saan u wala blend gareeyo. saddexdii color ayaan isku blend garanayaa insha Allah. Saa arkisiinba blended. Happy baan ku yahay. Marka brushkan yar baan soo qaadanayaa oo Morphe M433 brush. Waxaan isticmaalayaa colorkan rose-ga Pep Talk ee la dhahaa. Marka waxaan doonayaa xagga dusha inaan ku buff gareeyo. Okay, waa kaas waan ku blend gareeyay colorka pinkiga rose-ga ayaan ku blend gareeyay indhaha coloradii oo dhan. Marka waxaan doonayaa inaan soo celiyo colorkii aan u horeysay aan isticmaalay mood colorkan ayaan doonayaa inaan dhexda gelino, dhexda marino haddaan yirahdaba xaggaas ayaan ku waxaan sameynayaa colorkii aan ku blend gareeyay mood wasted colorkan ayaan markaa ku blend garanayaa aan isagana soo celinayaa. Markasta waxaa la sameeyaa wixii horeysay stepkii horeysay aad sameysay un baa lagu soo celiyaa siduu coloradii usoo noqdo oo infused oo dee waa lagu yara blend gareeyaa sidii colorku markaa popping u noqdo oo usoo noqdo. Marka saa arkaysiinba blending badan baan sameynayaa. Blendingu waa very muhiim, especially xilligan waa very muhiim. Markuu horeysa eyeshadow sameynaysid waxa muhiima colorka inaan isha gelino ama isha aan marino. Marka dambe ayaa blendinga aad u muhiim yahay. Marka ilaa gacanta ku daasho baan ku yiri waana saa ugu wadid wayna wadid colorku markaas qurux badan buu usoo baxayaa. I hope inay arkaysiin bal zoom baan in yar sameynayaa. I hope inay arkaysiin marka insha Allah. waxaan sameyn doonaa marka concealerkan soo qaadanaya. Concealerka markaa dhexda marinayaa cadaatiga ahaa ayaan haddana isha yar marinaynaa in yar. Morphe brushkan ee M224 ayaan isticmaalinaa dhinaciisa kale aan isticmaalinaa and then ishaan marinaynaa especially xagga middleka dhexda ayaan doonaynaa inaan concealerka marino. So cut crease ayaan u maleynaa ku garan kartiin. Waan cut garanaynaa and concealer baan ku cut garanaynaa. In badan ma doonayo concealerka inaan ku badiyo. Mid qaladaan isticmaalay brushka inaan isticmaalahayd M166 laakiin waa caadi. Brushkaas waxaa weeyaan brushkii aan ku talagalay glitterka inaan mariyo. Laakiin sameyn doonaa farta ayaan isticmaalaysan glitterka u mariyo. In yar anoo yara qalalo dry gareysmo. Sa arkaysiinba in yar baan goynay. Waxaan sameynayaa paletka ayaan ku noqonaynaa. Paletka ayaan soo qaadanaynaa Bakcha colorkaas waxa weeyaan glitter oo blue glitter. Saan yiriba farta ayaan isticmaalayaa. Fartayda index fingerkayga ayaan sidaa u dul marinayaa.
حقي uun aan conceal garayna insha Allah. waa kaas si qurux badan ayuu usoo bixi doonaa. Also inaan ii sheegay ma garanayo laakiin kalarada oo dhan markaan isticmaalay kalarada pinkiga iyo bluega markaan mix ka dhigay wuxuu isku bedelaa kalar yar oo purple ah. waxa weeyaan arrimaha haddaad laba kalar isku dartid kalarkaasuu noqdaa. waxaas markaa waa qurux, si qurux badan buu usoo baxayaa. waxa weeyaan purple infused with blue. marka waxa weeyaan top baan ku yiri saas ayaan u yara taabsiinayaa. happy baan ku yahay although brushka ayaan jeclaan lahaa inaan glitterka ku mariyo laakiin way dhacdaa. waxaan sameynaya markaa mascara ayaan marsanayaa and then eyelasheska ayaan soo gashanaya insha Allah. ana waan igu soo noqon doonaa. also indha kuxul baan indhaha marinayaa, waan igu soo noqon doonaa markaa insha Allah. actually also suniyahaygaan soo sameynaya because sunihii already maalisameen. marka anigoo dee completed ah ayaan igu soo noqon doonaa waayo ma doono inaan deerayo videogan insha Allah. marka anoo wala dameeyey makeupka ayaan ugu soo noqon doonaa insha Allah. waa ka waan ugu soo yar noqday waxaan dameeyey imika wejigii baan dameeyey, blushkii baan marsaday, contourkii baan ku celinay, bakingii baan sameynay indhaha hoostiisa 2 powder on baking. mid aan translucent powder baan isticmaalay iyo mid setting powder. marka insha Allah futureka waan ii macnayn doonaa makeupka ama powderada kala nooca waan ii macnayn doonaa insha Allah. marka waxaan doonayaa inaan tuso. also waxaan isticmaalay blush ayaan cheekskayga mariyey, contourkii sankana waan dameeyey, highlighter baan marsaday. inay arkaysiin ma garanaysa fiican wala arkaya. highlighterkii baan marsaday. spraygan aad u fiican Glam Glow ayaan kasoo iibsaday. aad buu fiican yahay especially makeupka marka la dameeyo iyo powder badan. qofku hadduu dry skin haysto maaha qalad inuu qofku powder badan isticmaalo. waxay ku xiran tahay makeup productska ay isticmaalisid iyo sida uu isticmaalisid. markastaan waxaan sameeyaa markaan product iga digaya engage ama mattifying. so for example powderka badan ma jecli laakiin markaan doonayo wejigayga ama makeupka inaan qurxiyo aan doonayo inaan beegareeyo indhaha hoostiisa iyo areaska lagu talagalay inaan la beegareeyo waxaan sameeyaa spray oo hydration badan leh ayaan isticmaalaa. aan wejigay marka ku hydrate garaya. marka qofku waa inuu is ilaaliyo as well bakinga in 5 to 10 minutes ka yarba ayaan beegarayaa. marka insha Allah videoga soo socda insha Allah ayaan mii macnayn doonaa insha Allah productyaasha oo dhan saan u sameeyo. imika waxa weeyaan waxaan sameynayaa inta u dambeysa fururahayga ayaan marsanayaa lipstick. marka maanta lipstick aan marsanayo waxa weeyaan Morphe lip liner, Morphe lipstick xamurada iyo glosska la dul mariyo ee dee shinyga ah ee dalaalka leh ayaan isticmaalayaa. marka waxa weeyaan trio 3 buu waa 3 iswata. marka trendsetter lip linerka waxaa la dhahaa trendsetter ayaan ku bilaabayaa. marka hoostan waxaan u eegayaa waa muraayadeyda ayaa hoosta yaala. lipsticka ayaan markaa marinayaa fururahayga. waa lipstick iska yara cadaati ah laakiin marka dambe ayaan qurxinaa. in badan ma jecli inaan fururaha mariyo. marka in yar baan jecliya xagga dhexda inaan mariyo. marinayaa glosska. glosska waxa weeyaan ka shinyga ee dalaal siin doona fururaha ayaa markaa aragno inaa si fiican u arkaysiin. bal zoom in yar baan yara degayaa more. waa kaas fururahooda markaa dul marinayaa. waa yar cadaati saa u arkaysiinba. marka bal glosska in yar baan ku yara daynayaa maybe secano ayaan ku dayn doonaa. and then waxaan doonaa inaan isticmaalo lip linerkii marku horeysay aan isticmaalay qalankii ayaan dul marinaynaa brownka. horta
hablo markaste marka lip furuuraha la sameynayo gabdhaha women of color baa la dhahaa hablaha dee color kale wejiga markas waxaa very important ah inaan isticmaalno lip liner naga madow maahe lip liner brown ah bunny ah ayaa markasta la isticmaalaa as a lip liner waayo actually waxaan sameyn doonaa video baan u sameyn doonaa reasonka loo isticmaalo snapchatkayga waxaa laga weydiiyey please samee video lip combo waxa weyn kalarada isku qurxoon marka furuuraha la marsanayo marka anigu sanadihii marsanaya makeupka lip combos oo dee isku soo baxaya ayaan arkay amba aan bartay markasta markaa dee lip liner marsanay sidii lip gloss marsanay sidii lipstick marsanay waxaa arkaysaa kuwa isku soo baxaya oo qurux ka digaya marka sanadii horaan u malaynayaa mise 2 sanadood ka hor YouTube channelkayga Maya Talks ayaan ku sameeyay videogaas wuxuu ku baxay af Ingiriis laakiin insha Allah waxaan isku diyaarin doonaa week soo socda inaan sameeyo video af Soomaali ku baxaya sida lip combos furuuraha kalarada quruxda badan isku soo baxaya inaan sameeyo marka kan oo kale waa lip combo waa 3 color oo isku soo baxaya oo lagu talagalay dee inuu qofka se colorkayga oo kale amba midabkayga inuu ku soo baxo marka insha Allah waxaan sameyn doonaa imika lip linerkii aan isticmaalnay markii ugu horeysay ayaan dul marinaynaa in yar anu markiiba difference baan arkay muraayadeeda ayaan ku arkay isbedel weyn natural lipskaaga naturalka ayaa just dul marinaysaa waa kaas waan wala marinay furuuraha actually I'm in love anu aad baan uga helaa lip combogan anyways markasta waan jeclay inaan marsado marka in yaroo powdera ayaan marinaynaa to be honest concealer baa fiican inaan mariyo laakiin waxaan arkay inaan u yara baahan yahay powder sameynaya waa last stepka wejiga oo dan ayaan spray garanaya sprayga aan isticmaalayana waxa weeyaan Morphe isaga waa Morphe marka Morphe spray waa continuous spray waa very good anu waan ka helaa spraygan makeupkayga oo dan qurux buu ka digaa obviously qof haysta normal to dry skin aad buu ugu fiican yahay spraygan marka waa kaas inay arkisiin I hope inay arkisiin anu waan u malaynaya inay arkisiin bal in yar baan yar zoom gareen marka waa kaas lookii aan maanta nii sameeyay ama makeup lookii aan nii sameeyay waa kaas I hope inaad ka heshiin insha Allah I hope inaad ka heshiin lookan amba aad barateen sida loo sameeyo makeup lookan amba ahaato indhaha maanta aan u sameeyay absolutely in love anu waan ka helay kalarada badan aan isku mix gareeyay aan colorkan ka soo baxay basically waxaan u harsanayd actually inaan mariyo colorkan indhaha hoostiisana waan mariyay waxaan isticmaalayaa colorka u dambeysa ayaan doonayaa inaan mariyo indhaha cornerka waxa weyn colorkan cadaatiga pink me baa la dhahaa markas waxaan ogyahay pink me waxaa loo saaray waayo markaste markaa dee color dul marisay colorkaas wuxuu noqdaa purple ama pink buu isku bedelaa marka kaa rose buu isku bedelaa laakiin marka kana imika mariyo purple buu isku bedeli doonaa maadaamaan purple isticmaalayo marka brushkan M431 baan isticmaalayaa waxa weeyaan Morphe brush indhaha koonaha ayaan marinaynaa waa kaas violet buu isku bedelay light ah markaan waxaasan ku jecel yahay kalarada isbebedelayaan marka kalar la mix gareeyo kalar kale uu noqdaa absolutely in love waan ka helay wallahi masha Allah I hope ina inukuna baratiin si loo sameeyo makeupka ama baratiin eyeshadowgan amba eyeshadow in general so loo isticmaalo amba eyeshadowga colorka xaga commentska hoos igu soo qora videoyaasha kale aad doonaysiin inaan sameeyo insha Allah amba makeup look aad doonaysiin inaan sameeyo color hair kale aan sameeyo next color cake actually iyaan sameeyaa next keebaad doonaysiin inaan sameeyo maadaama Valentine's Day soo socdo insha Allah maybe waxaan sameyn doonaa Valentine's look
makeup look inaan isticmaalo kalarada jacaylka kalarada casaanka iyo kalaradaas oo dhan baan isticmaali doonaa insha allah marka iisoo sheegay ninkuna xaga commentska kalarka aad doonaysiin inaan isticmaalo an eyeshadow look nii sameeyo oo kalara insha allah marka hayga iloobina subscribe-ka like-ga iyo comment-ka hayga iloobina waxaan doonayaa inaad comment-ka hoos igu soo qortiin haddaad tihiin subscriber cusub kusoo dhawow channelkayga magacayga waxa weeyaan Sumaya Maya Beauty marka insha allah kusoo dhawow channelkayga like garay subscribe garay support garay insha allah horta anigu aad baan ugu faraxsanahay wallahi inaan sameeyo serial af Soomaali aan ku hadlayo channel kale waan haystaana on af Ingiriis ku hadlo laakiin channelkan u gaar ayaan u furay Soomaalida inay bartaan makeup-ka skin care-ka waxaan de anigu jeceliyaa aan bartay inaan dadkana baraan doonayaa marka insha allah assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh